halkani waa BBC laanta afka Soomaaliga oo aad ka dhagaysataan mowjadaha gaagaaban kuwa efemyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala xidhiidhaan barteena internetka ee bbcsomali.com. subax wanaagsan akhyaarta hawada nagala xidhiidha saacaddu waa 7 oo gowa. waa maalin jimca oo ay taariikhdu tahay 29 bisha November ee sanadka 2019. qodobada aan idaacadda subaxnimo idinku hayno waxaa ka mid ah shirka G20 ee maanta ka furmaya dalka Argentina oo ay xiisad dul hoganayso 60 jir qaxooti ah oo aan waxba maqlin haddana wax barta. maxamed su'aashaadu wuxuu ugu majibay waxbarashada inay maartay qaali tahay ayuu ku majibay arintayda iyo Chelsea oo gool gaadhay. qodobadaas iyo kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamka ku saabsan ayaad maqli doontaan. halmaan hadal kuma jiro waa 30 November ee waxaa barnaamijka idinla socodsiin doona anigoo ah Xasan Haybe. marka hore aan ku bilowno warkii dunida oo inoo soo jeediyo Ciise Xaaji Cabdulle Ciise. mahadsanid Xasan. 7 ruux oo ku sugan dalka Honduras ayaa lagu helay inay dileen Berta Cesares oo ku caanbaxday u ololaynta deegaanka. 3 sano ka hor ayay ku guuleysatay abaalmarinta qaaliga ee Goldman iyadoo ku mutaysatay sidii ay uga soo horjeesatay biyo xireen korontada laga dhalinayo oo laga sameynayo webi ay bulshadeedu u arkaan inuu barakaysan yahay. Roberto Azevedo oo madaxa hay'adda ganacsiga adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WTO ayaa sheegay in hirarka isqaqobitaanka ah ee dhawaanahan jiray ay keeneen dhibaatadii ugu baaxadda weyneed tan iyo markii uu xilka hayay mas'uulkii uu bedelay. heshiiska guud ee canshuuraha iyo ganacsiga Magaat ayaa la aasaasay sanadkii 1947. Roberto waxa uu sheegay inay halis ku jiraan heerarka asaasiga ee hay'adda ganacsiga sababtuna ay tahay muranka ganacsi ee ka dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha. wararka ka imaanaya dalka Suuriya waxay sheegayaan in ciidamada Israa'iil ay weeraro dhanka cirka ku qaadeen deegaano kala duwan. waxay u muuqataa inay bartilmaameedsadeen goobo hubka ay ku kaydsadaan maleeshiyooyinka taageero ka haysta dowladda Iiraan. hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan carruurta UNICEF loo soo gaabiyo ayaa sheegaysa 3 meelood oo 2 carruurta ku nool dalka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo. iyadoo dhibaatadan ay sii xumaanaysa waxayna hay'adda warbixinteeda ku sheegtay in 4 ilmoodba mid ay la kulmeen barakac halka kumanaan ka mid ahna loo geystay tacadiyooyin dhanka galmada ah. hogaamiyaasha caalamka ayaa bilaabay inay gaaraan caasimadda Argentina ee Buenos Aires si ay ugu qayb galaan shirka wadamada G20. shirka ayaa bilaabanaya iyadoo ay ismaandhaafsan yihiin wadamada ugu awoodda weyn caalamka oo ka dhexeeya dagaal dhanka ganacsiga ah sida Mareykanka iyo Shiinaha iyo Ruushka oo qafaashay maraakiibta dagaalka ee Ukraine. warkii dunidana waa naga intaasaan dib idin kugu celiyo Xasan. mahadsanidkaasina wuxuu ahaa Ciise Xaaji Cabdulle oo warkii dunida inala socodsiinayay. sidii aad warkaba ku maqlayseen waxaa maanta oo jimcaha dalka Argentina ka bilaabanaya shirka dalalka ay ku midaysan yihiin ururka G20. dalalkaas ayaana ku dhowaad 85% ka ah dhaqaalaha caalamka. waxaa ku jira dalalka ugu dhaqaalaha badan caalamka kuwa dhaqaalahoodu uu ugu horumarsan yahay iyo dalal uu dhaqaalahoodu soo kobcayo. shirkan ayayse isugu tagayaan mas'uuliyiin badan oo ismaandhaafsan kuwaas oo ay ka mid yihiin madaxweyne Trump oo baajiyay kulan uu la qaadan lahaa Putin, amiir kale dhaxalka boqortooyada Sacuudiga Mohammed bin Salman iyo madaxweynaha Turkiga oo aad ugu kala fogaaday dilkii foosha xumaa ee Jamal Khashoggi. haddaba ahmiyadda shirkan iyo madaxdan ismaandhaafsan ee madashani kulmisay ayaan goor hore wax ka weydiiyey Dr. Sacad Sheekh Cusmaan Nuur oo arrimaha caalamka ka faallooda. waxa weeye waa runtaa weeye shirka kan waa la furi doonaa. waa shir muhiima weeye. dowladihii ugu muhiimsanaa dunida ayaa isugu yimaadeen dhaqaalihii dunida gacanta ku hayay. waana runtaa kii ka horreeyey muran baa hadheeyey. murankaasina muran siyaasadeed buu ahaa runtii. arrintu waxa weeye shirkani ahamiyaduu leeyahay waxa weeye dadkii dunida ugu muhiimsanaa ee dhaqaalihiisa hayay ayaa da isugu imanaya inay isfahmaan bal umuuraha dunidan maanta hadhaynaya ee dhibaatooyinka ah iyo kuwa la filaya inay dhibaato keenaan iyo dhibaato maanta taagan meelo badan sida wax looga qabanayo. guud ahaana waa iswaraysi weeye wax weyn oo muhiim kama soo baxaan.
madaxweyne trump wuxuu baajiyey kulan uu madaxweynaha ruushka la yeelan lahaa inta uu socdo shirkaas G20 muxuu u dhimi karaa calaaqaadka labada hogaamiye calaaqaadka labada hogaamiye waxa weeye calaaqaad runtii aan deganayn laakiin ay u noqotay dani kute laba nin oo aan kala maarmi karin laba dal oo aan kala maarmi karin waa labadii dal ee dunida ugu xooga weynaa Putin iyo Trump waxa weeye yani barbarbaad waxaad moodaa sida isula macaamiloodaan jiir iyo bisad hase ahaatee labaduba waxay og yihiin nin waliba maslaxadda dantiisa ah iyo tadalkiisa inuu doonayo inuu horumariyo waan arkayaa buu yidhi Putin haddana wax laleeyahay arki maayo sababtana waxa weeye arrintan Ukraine ka dhacday marka waxa weeye uun xiriir markiisii horeba marna sare u kacayay marna hoos u kacayay laakiin inaba aan gaadhin si labada dowladood danahooda dhibaato weyn u gaadho weeye marka maalinba halkuu marayo uun habaxaadigu arrinta ay ku kala aragti duwan yihiin ee madaxweyne Trump uu u baajiyey waa arrinta Ukraine hadda waxay dalbanaysaa oo gaashaanbuurta NATO ay weydiisatay maraakiib dagaal arrintaas sideed u aragtaa arrintaasi waxa weeye arrin ugu ma aha Ukraine iyo dhibaatada Ruushka kala haysataa in badan bay iminka socdeen madaxweynaha maanta jooga Poroshenko waa la malaynayaa madaxweynihii ku horreeyay sidaasuu ku dhacay bariga Ukraine kooxaha haysta ka soo horjeeda dowladda oo ayaguna dowladdan Ukraine u haysato inay Ruushku gacan siinayaan xataa ay leeyihiin Ruush baa ku jira laakiin inuu NATO u soo diro maraakiib lagu difaacayo Ukraine waa khayaal mana dhici karto dib beedankeeda la leeyahay Ingiriisna samayn maayo Faransiisna samayn maayo Jarmankuna samayn maayo waa uun arrin uun la dooni doono hadhowto in siyaasad iyo wadahadal lagu dhameeyo inta ayna arrimaha Trump ka bixin waxaa la filayaa inta uu shirkan G20 socdo in uu la kulmo madaxweynaha Shiinaha oo aad og tahay in dagaal culus oo dhanka ganacsiga uu kala dhaxeeyo iyagana maxaa laga fili karaa wax weeye xiriirka ka dhaxeeya waa xiriir muhiim weeye mid dhaqaale mid diblomaasiyadeed mid istaraatiijiyadeed weeye China miisaankeeda iyo culayskeeda meesha ay degan tahay dunida ka degan tahay bariga qaaradda Aasiya waa la yaqaanaa waxa weeye uu kolba uu bal hadda wixii la soo darsa midalba dantiisu leeyahay sidii loo kala danaysan kari lahaa ee loogu heshiin lahaa uun in maalintaa meel la wada dhigo wax culus oo maanta dhibaato ah oo laga baqayaa inay labada dal ku kala kacaan ma jiraan ugu dambeyn waxaa jira warar aad loo hadalhayo oo sheegaya in amiir kale dhaxalka Sacuudiga Mohammed bin Salman uu codsaday in uu la kulmo madaxweynaha Turkiga ahmiyad intee leeg ayuu leeyahay kulankaasi ahmiyadiisu waxa weeye runtii Erdogan marka ay kiiskan amiirka noqoto iyo ninkii meesha lagu dilay ee saxafigii Sacuudiga ahaa ee Jamal Khashoggi mid aad iyo aad ahmiyad ugu leh weeye amiirka Turkiya oo uu hogaaminayo Erdogan runtii iyaga ayaa qadiyadan halkay gaadhaytuna waxa weeye sida dad bariga dhexe maanta wax ka ay leeyihiin ma jecla Erdogan amiirka iyo hogaanka uu boqortooyada maanta ku hayo amiirkaasi sababtoo ah waxa uu haystaa inuu yahay nin ka soo horjeeda islaamiyiinta iyo ikhwaanul muslimiinta dad badanina waxay u arkaan Erdogan inuu runtii aad iyo aad uga tirsan yahay ama aad ugu dhow yahay gruubka leeyahay ikhwaanul muslimiin marka waxa weeye waa la sharki doonaa arrinta waxay noqon doontaa dee amiirku hadduu isaga arko ninkan waxa weeye arada ciriiriga iga qaad haddaad iga qaadi karayso laanoo dee wax kale oo meesha yaalaaba waana jirin aad buu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa Dr. Sacad Sheekh Cusmaan oo ka faallooda arrimaha caalamka goorsii horeysay ayuu khadka taleefanka igu waramayay isagoo ku sugan dalka Mareykanka qaar ka mid ah dhageystayaasha BBC ayaa Facebooka aragtidooda kaga soo dhiibtay Maxamed Xaashi Maxamed oo ku sugan Boosaaso waxa uu yiri shirka G20 ee loo madlan yahay in uu ka furmo Argentina waxaan u arkaa mid aan macdan badan sameynaynin waayo buu yiri waxaad moodaa madaxda ka qayb galaysa qaarkood in ayba aad isugu khilaafsan yihiin waxyaabo badan mahadsanid buu yiri isaguna waan u mahad celinaynaa dhageysto kaleetana waxa uu yiri waa Zakariya Raage Bootaan oo jooga doolo shirka G20 ee maanta ka furmaya Argentina waan soo dhaweynaynaa waxaana rajaynayaa in qodobo badan oo is-afgaran waa uu ka jiray in la isku raaci doono lana hirgelin doono wada hadalka heshiiska
heshiiskaasna wadahadal waxyaabaha jiran lagu dhammayn doono. intaa haddii aan kaga gudubnana baarlamanka dalka kenya ayaa markii saddexaad ku guul daraystay inuu meel mariyo qoondada jinsiga ee 3/2. hindisahaas ayaa dood adag dhaliyey waxaana laga cabsi qabaa in arrintaasi ay qalalaaso dastuur u horseedo dalka kenya. haddaba mar haddii biilkaasi mar kaleeta lagu guul daraystay maxaa la gudboon dumarka kenya? waxaan arrimahaasi ka wareysanay cabdiraxmaan kuusow xasan oo u warramay bashka jug soo dhacay. waxaa xiga inay maaragtay labada xisbi oo waddanka jiraan, xisbiga naasa oo Raila Odinga uu hogaamiyo iyo xisbiga Jubilee oo talada haya Uhuru Kenyatta hogaamiyo, inay dib iskugu noqdaan, ay wada fadhiistaan, ay strategize gareeyaan sidii biilkan loo marin lahay intii baarlamaanka la keeno bisha January. waayo hadda waxay og tahay saddexdii goor ay soo celceliyeenba inay maaragtay degdegsiinay ku keeneen oo waqti fiican la siinin, si fiican oo tashanin, si fiican oo hadlin nimankii hogaamiyaasha inay si fiican baarlamaankooda inay si fiican oo hadlin, kulley way wada fadhiisan doonaan, aqli fiican baa isu keeni doonaa, markaas kadib ala si fiican baa loo marin doonaa sidaan ognahay. madaxweynaha dalka kenya iyo ninka mucaaradka u weyn baaq bay u direen marka mudanayaalkii xisbiyaalkooda laga soo doortay in ay meel mariyaan maaragtay arrintan qaabilsan haweenka dalka kenya oo kursiyaalkooda loo kordhinaya, mayna markaa ka qaadanin. marka maxaa rajooyinka ay labadaas ay qabaan in mar dambe ay markaa ka dhadhacsiiyaan mudanayaalka marka in ay meel mariyaan biilka asaga? baaqaas ay jeediyeen labada hogaamiye oo labada xisbi kala haystaan baaq si fiican loo wada maqla ma aheen. baarlamaanka inta badan may maqlin oo maaragtay si fiican loogama dhadhacsaynin, laakiin waxaan filaya haddii si fiican loo wada fadhiisto, si fiican loo strategize gareeyo oo hal bir laga wada socdo, waxaan fili baaq loo wada dhan yahay ay noqonaysaa. waayo kii hadda u baaqeen looma dhaneen, marka waxay noqonaysaa dad hal bir oo socdo oo hal wax raadinayo. marka waxaan fili markii January bisha kuwaad insha Allah taala 2019 markii biilka la soo celiyo baarlamaanka ku soo celiyo inuu si fiican si loogu talagalay inuu mari doono. mudanayaalka baarlamaanka dalka kenya maxay ka biyadiidsan yihiin oo ay u diidan yihiin marka inay meel mariyaan biilkan? sababtoo tahay waa markii saddexaad oo baarlamaanka la keena oona lagu guuleysan waayey. mudanayaalka baarlamaanka kenya waa dad siyaasiyiina, siyaasiyiintana waxbay meel fog ka fiiriyaan. badi waxay ku andacoonayaan biilkan waa biil qiimo badan keeni doono oo waddanka dhaqaalaad fara badan kusoo kordhi doono, waayo wuxuu kordhinayaa cadadda laga rabo gabdhaha baarlamaanka ku jiraan. marka badi taasay sheegayaan, laakiin qayb kaloo siyaasadna way ku hoos jirtaayoo waxaa la leeyahay dhinaca gabdhaha haddii lagu kordhinayo dhinaca raggana lagu kordhiyo, wax noocaas ayaa maarata la iswadaarsanaya. laakiin haddaba wax cadeen oo banaanka hadda miiska saaran oo waajaxa ma jiro badi, laakiin waxaa lagu kookooba dhinaca dhaqaalaha oo waddanka ayuu kor u qaadaya. marka taasna hadda badi ay og tahay, laakiin waxaan u malaynayaa haddii labada hogaamiye si fiican oo dhahmi lahaayeen bilkii mar hore mari lahay. waxaa la ogsoon yahay dadka codkooda aada u dhiibtaan oona tirada badan dalka kenya waqtiyaalka marka doorashada waa haween. arrintan in la meel marin waaye haweenka kenya maxay ku tahay? kolley haweenka kenya haddaba si fiican baarlamaanka kuma jiraan, waayo 290 kursi oo waddanka 290 kursi 3 bas haween laga soo doortay, inta kale waa rag. midda kale 40 county oo waddanka 47 haween baa ka imaadan iyagana. marka waxay u eg tahay hadda sana hadleyno haweenka cadadooda hoos bay jirtaa baarlamaanka kenya. waxaa la isweydiin karaa arrintan maxay ku tahay dimuqraasiyadda markaa ka jirta dalka kenya? kolley waa maaragtay arrinta dimuqraasiyadda aada ugu lidato. marka dimuqraasiyadda waddanka hoos bay u dhacaysaa. biilasha kale oo soo socdaan oo faa'iido ugu jirta haweenka xitaa si fiican looma marin doono, waayo haween fiican oo u andacoonayaan xuquuqda dumarka kuma jiraan baarlamaanka. marka waxaan u arkayaa inay dimuqraasiyadda ahaan inay maaragtay hoos u jirto oo arrintaas aada looga tirsan lahay baarlamaanka kenya. waraysigaasina wuxuu ku saabsanaa baarlamanka dalka kenya oo markii saddexaad ku guul daraystay inuu meel mariyo biil ku saabsan qoondada jinsiga. cabdiraxmaan kuusow ayaa inoo faahfaahinaya arrintaas. bashka jug soo dhacay ayuuna u warramayey. b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. halkaad nagala socotaanna waa b b c. saacadduna waxa ay tilmaamaysaa 4:50 biriqsi. markana taxanaha b b c da ee 100 dumar ah waxaan maanta ku waraysanay khadiijo ciise faracadde oo ah tababare dhanka hogaaminta, iyadoo isu xilqaantay in ay dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho barto hogaaminta
sidoo kaleetana waa abwaanad suugaanteeda u adeegsata wacyigelinta iyo nabadda. wariyaha b b c faadimo macalin abuukar ayay u warantay. tababarka hogaaminta hadda waxaan u sameynaa dhalinyaro tiradoodu ay aada u kooban tahay oo lasoo xulay, laakiin mustaqbalka dhow haddii ilaahay idmo waxaan rabnaa inaan ballaarino. waa wax shaqsi uu wado oo hadda inta badan keligay iyo dad caawinayo dhalinyaro maahane xawaariha aan rabnayna kuma socdo, laakiin mustaqbalka insha allah waxaan rabnaa inaan xarumo waaweyn oo hogaamineed la sameeyo oo dadka aada loo tababaro. cilmiga hogaamintu qof kastoo anfici lahaa, qof kastoo qoys leh ama bulsho ku dhex nool ama maamul qayb ka ah wuxuu u baahan yahay inuu leeyahay xirfad iyo aqoon la xiriirta hogaaminta. sidaas darteeda waxaan u arkaya mar kastaba inay aada muhiim u tahay. waxyaabaha keena inaan mas-uuliyad gaar ah iska saarana waxaa ka mid ahayd anigu waxaan ka mid ahay dadka tirada yar cilmigaa soo bartay, fursadaas helay. marka waxaa waajib igu ah in fursaddii aan helay oo aan ka faa'iidaystay aan soo celiyo oo aan haddana sidoo kale dadka kale uga faa'iideeyo. waa tahay Khadiijo, dhinacyadee ayaad diiradda saartaan marka? dhismaha shakhsiyadda qofkaan aada ugu dadaalnaa in la helo dad dhisan oo qofku naftiisa yaqaano, naftiisa u fahmi karo si uu dadka kaleeta uu la nool yahana u fahmo. waajibaadka muwaadin kastoo Soomaali ah saaran in la fahmo waxay ku xiran tahay mararka qaarkood in la helo waxa isku xira bulshada iyo qofka. marka dhinacyadaasaan aan tababarada ka bixinaa, laakiin sidaan hore kuugu sheegaba ma ahan wax aad u xoog badan oo sida aan ka rabna weli ma gaarsiisno. waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo inaan ballaarino. sidoo kalena dadka hadda tababarada u socdaan iyo kuwii hore loo tababaro insha allah waxaan rabnaa inay ayaga laftirkoodu ay gaaraan marxalad ay gudbi karaan wixii ay barteen si dad kale ay ugu faa'iideeyaan. marka laga soo tago hogaaminta ma jiraan barnaamijyo kale oo aad dhalinyarada u qabataan adiga iyo dhalinyarada kale kula shaqaysa? tababarka hogaaminta waxaa dhinac socota tababaro kale oo la xiriira tiiraanya bixin. tiiraanya bixinta waxyaabaha aan aaminsanahay waxaa ka mid ah bulshadeena waxyaabaha ragaadiyey oo hoos u celiyey waxaa ka mid ah dhibaatadii kala gaartay dadka ilaa hadda xal looma helin. marka si dib u heshiisiin waarta loo helo oo miro dhasho waxaa marka hore lagu qasban yahay in marxalado badan horta lasoo maro. marxaladahaasna waxaa kow ka ah tiiraanya bixin iyo dadka in la gaarsiiyo heer ay iscafiyaan wixii ay kala haysteen isu celiyaan. waxaa kale oo la socda barnaamij kaleete oo ah counseling ama la talin. dhibaatada wadanka ka dhacaysa aaday u xoog badan tahay, wadankuna ma laha xarumo maaragtay lagu daaweeyo dadka dhibaatadu ka soo gaarta qaraxyada ama colaada qaybaheeda kala duwan ama dulmiga socda. qarax kastoo dhaca dadku waxay arkaan saameynta iyo burburka oo uga tago goobihii qaraxaasu ka dhacay ama dadkii dhintay iyo kuwii dhaawacmay, laakiin saameynta muuqata waxaa aada iyo aada uga xoog badan midda aan muuqanin ee qaraxyadu ay ku reebaan dareenka iyo maskaxda qof kastoo Soomaali ah. sidaas darteed waxaa lagama maarmaan ah in la helo istaraatiijiyo looga hortagayo dhaawacyadaas qalbiyada dadka ku yaala si aysan maaragtay dhaawacaas haddii uusan daawo maanta helin waa faafi doonaa, berrina wuxuu gaari doonaa inuu qofka inta burburiyo oo haddana sababo qofkaas iyo dadka hareerihiisa ku nool xitaa inuu saameeyo. waa tahay marka barnaamijyadan maxaad isleedahay way ku kordhin karaan dhalinyarada? shaqsi ahaan waxaan aaminsanahay in si bulsho caafimaad qabta loo helo, si maaragtay loo helo hogaamiyeyaal tababaran oo waxa laga filayo iyo waxa waajibkoodu yahay yaqaana. waxaan ku qasbannahay in aan diyaarino hogaamiyeyaasha mustaqbalka. maxaa yeelay hadda markaad u fiirsato waxaa arkaysaa dadka Soomaaliyeed intooda badan inay dhaliilayaan qof kasta oo maamulka qayb ka noqda ama hogaaminta qayb ka noqda, hogaanka wadanka qayb ka noqda. marka si dhaliilahaas iyo waxaas looga gudbo waxaan u baahannahay madaxdii berri in maanta la diyaariyo. wadankeenu dad soo ma saaro, dadka aan aragno oo socdana waa dad ayagu inta dadaalay dadaalkooda kusoo baxa maahana dad la nidaamiyey oo la diyaariyey oo berri loo diyaariyey wadanku ma laha. si loo dhiso shaqsi kasta oo Soomaali ah, qoys kasta loo dhiso. sidaas darteed markii qoyska la dhiso oo shaqsigu dhisan yahayna waxaa dhismi karta bulsho caafimaad qabta. waxaan gaari karnaa meesha aan hiigsanayna, laakiin inta la fariisto dhaliil iyo maaragtay cambaareyn uun la wado waxba kuma hagaagayaan. taasina waxay ahayd Khadiijo Ciise Faracade oon ku waraysanay taxanaha 100 dumar ah. Faadimo Macalin Abuukar ayay u waramaysay. waxay noo soo socota warbixin ku saabsan magacyo isku khaldamay oo nin mashaakil u horseeday Australiana aad looga hadalhayo. markanse ciyaarihii 2 gool oo uu dhaliyay Olivier Giroud oo uu ka dhaliyay kooxda PAOK Salonika
ayaa kooxda Chelsea gacan ka siiyey in ay kaalinta koowaad ee horinta la ee koobka Europa League kaga soo baxaan. Ciyaartoygan Faransiiska ayaa shabaqa ku hubsaday 2 baas oo ay u soo kala dhigeen Pedro iyo Fabregas. Kooxda Salonika oo marti ku ahayd garoonka Chelsea ayaa 10 ciyaartoy ku dheelaysay tan iyo daqiiqadii 7 waxaana markaas kaarkacas ka qaatay Yevhen Khasheredi kaas oo istuuray fursad gool noqon kartayna ka hor istaagay Giroud. ciyaartaas ayay guusha ku raacday Chelsea waxayna ku soo idlaatay 4-0. kala soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada dalka guud ahaan bariga Afrika iyo caalamkaba. barta bbcsomali.com waxaa ka go'an inay kuu soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyagoo oo maqaliya muuqaalba leh. warbixinnadii ugu dambeeyey, waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn, bbcsomali.com waxay kuu soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla markaa ay dhacayaan. ka qaybgal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook. booqo oo kala soco moobaylkaaga wararkii ugu dambeeyey ee Soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com. mar kasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com. farxaan maxamed jimcaale aad buu mahadsan yahay ee dhegaystayaal markana sheeko xiiso badan. maxamed salaam cumar waa 62 jir qaxooti ku ah dalka Kenya, lixaadkiisuna uu kala dhiman yahay oo aan waxba maqlin. waxa uu go'aan ku gaadhay in uu da'daas ku bilaabo waxbarasho, waxa uuna wax la bartaa arday uu da ahaan awow u noqon karo. wuxuu ku faraxsan yahay in da'daas uu fasalka koowaad ku yahay. maxamed waxa uu hiigsanayaa inuu mustaqbalka heer ka gaaro waxbarashada, sidoo kaleetana uu ka faa'iidaysto fursadaha waxbarasho ee loo fidiyey dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee Dadaab. bashkaas jug soo dhacay iyo sheekada maxamed aan idinka kala dhex baxo. qaar ka mid ah dadka ka soo carareen dagaalada ka socdeen waddanka Soomaaliya 30 sano oo la soo dhaafay oo ku sugan xeryaha ku yeelan Dadaab ay intooda badan aan ka faa'iideysan waxbarashada ka jirta dalka Kenya. sidaas oo ay tahayna waxaa jira dad qaarkood oon ka cajisan inay wax bartaan, weliba ayagoo lixaadkooda wax ka dhiman yahay. dadka ayaga waxaa ka mid ah Maxamed Salaan Cumar oo 62 jir ah oo fasalka koowaad ka bilaabay mid ka mid ah iskuulaha ku yeelaan Dadaab. maxamed maadaama uu ila hadli karin uu yahay ruux dhagool leh, macallinkiisa Abdullaahi Axmed Xuseen ayaa ii turjumaya su'aalada aan weydii maxamed. waxaana maxamed ugu horeyntii weydiiyey waxuu ku booriyay asagoo 60 jir ah inuu waxbarasho bilaabo. maxamed su-aashaada wuxuu ugu majiibay waxbarashada inay maaragtay qaali tahay ayuu ku majiibay arrinta ayada. xaggee buu rabay maxamed inuu ka gaaro waxbarashada? maxamed wuxuu leeyahay waxaan rabay inaan ilaa iyo heer secondary inaan dhameeyo oon dugsiga sare aan dhameeyo fursadaas qaali ayaan maaragtay jeclaystay. haddana markuu subay imtixaankii iskuulkii hoose dhexe maxamed muxuu helay? wuxuu helay buundo dhan 118 ayaan helay uu leeyahay. maadaama buundo 118 uu helay, taas ma u saamaxaysaa inuu iskuulka sare uu kaca? wuxuu leeyahay maaragtay maadaama buundo 18 aan helay ima saamaxaysa inaan aado secondary-ga. waxaad maxamed weydiisaa haddii loo ogolaada uu galo iskuulka sare, asaga waxbarashadiisa muxuu ku subin rabay? wuxuu leeyahay markii aan waxbarashada ay isiyaan oo ii ogolaadaan fursadda isiyaan waan ka faa'iidaysani si aan maaragtay fursad aan u gaaro maaragtay ilaa iyo heer jaamacadeed aan gaaro. waan aad baan ugu rajaynaya u dhahay maaragtay kama daalay. markuu jaamacad gaaro shaqo intee buu subin rabay maxamed? maantana wuxuu jiraa 63 sano. maanta oo 63 sano jira wuxuu yidhi shaqo haddii aan helo oo fursad meel chance uu ka soo baxo waa aad qaali igu tahay. marka waxaa waaye dadaalkaygaan si muujin haddii ay ii suurtageli wayso haddee waan codsanayaa u dhahay maaragtay waxyaabo kale ama farsamo gacmeed in sida farsamooyinkan kale in lii ogolaado. waxaad weydiisaa maxamed
shaqaduu subin rabi waa noocee wuxuu leeyahay maaragtay haddii ii fursa gashay waxaan noqon u dhahay maaragtay mustaqbalka inaan noqdo beeraley sargaal beeraha inuu noqdo rabaa saasuu leeyahay muxuu u doortay marka inuu sargaal beeraha maaragtay uu noqdo wuxuu leeyahay maaragtay dhulka ayaan garanaya beer qoodasho ayaan ahaa waageygii hore an yaraa marka arrintaas ayada igu dhalaysa u dhahay inaan doorto fursadda ayada kalkalsha maxamed waxaad weydiisaa 8 sano uu dheganayo iskuulka hoose dhexe ee ku yaala xerada qaxootiga ee ifo ilmahan yaryar uu dhex joogay uu la wax baranay see bay xaaladdaas ku ahayd wuxuu leeyahay maaragtay aad bay u akhlaaq fiicnaayeen marka wax dhib oon ka arkay ma lahan saas darteed waan isla baranayna waan isdabeecad fahmana uu dhahay maaragtay waa dad yar yar oo dhogolo oo sideedoo kale dhaqamadoodii waan fahmay saas darteed ayaan maaragtay isu dabeecad fahmay oo galaaska aan wax baranayna marka dhib ma isjirin uu dhahay xagga galaaska maxamed waxaad weydiisaa intuu wax baranay maadada ugu jeclaay oo u dadaali jiray waa maadade ingiliis ayuu u jeclaa suu sheegaya maadada ingiriiska ayuu aada u jeclaa muxuu ku jeclaysaday maadada af ingiriiska wuxuu leeyahay ku hadalka iyo dhawaaqidda ayaan u jeclaystay waa hagaag sheekadaas cajiibkaana waxay ahayd sheekadii maxamed salmaan cumar oo ah 62 jir aan waxba maqlin oo isaga oo qaxooti ah wax barta dhegeystayaal qaarkood ayaa facebook aaraadooda kaga soo dhiibtay waxaana ka mid ah cabdulaahi awliye oo deegaanka soomaalida ee etoobiya jooga ninka qaxootiga ee waxbartay isagoo weliba aan waxba maqlin waa arrin ku dayasho mudan ayuu yidhi markana dhegeystayaal magacyo ayaa la leeyahay dalka australia 2 nin bay magacyadooda isku khaldameen mid ka mid a ayuuna arrin halisa ay soo wajahday australia aada looga hadalhayaabaa laleeyahay ciisa soo akhriya ciise xasanow nin ayaa si qalad ah loo keenay maxkamad ku taalla dalka australia si loogu xukumo dembi dil ah kadib markii lagu qalday nin ay isku magac yihiin marka peter brown oo 57 sano jir ah ayaa lagu helay inuu dilay simon fraser oo haweeney ah waxa uuna ka soo muuqan lahaa maxkamadda sare ee victoria ee melbourne marka peter brownkii xasanow dembiga lagu helay ayaa dib laga keenay waxaana lagu xukumay 30 sano oo xariga garsooraha maxkamadda ayaa ka hadlay jahwareerka dhacay wuxuuna dhaleecayn u jeediyey marka ciidamada asluubta wuxuuna ka codsaday inay faahfaahin ka bixiyaan qaabka la isugu qalday magacyada 2 nin waa tusaale ahaan ciise nin la dhaho dembi geystay oo adigii lagu qabsaday oo maxkamaddii lagu hor keenay sidaas waay xasan haddana xabsiga victoria oo war qoraal ah ka soo saaray arrintan ayaa sheegay inay magacyo isaga qasmeen oo sidaas qof qalad ah maxkamadda ay ku geeyeen waa hagaag ciise aad buu u mahadsan yahay idaacaddii subaxnimo oo isagu soo saareen intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa anigoo xasan haybe ayaa idinla socodsiinaya waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiina waxaad nagala sii socon kartaan bbcsomali.com iyo baraha aan bulshada ku leenahay labada ayaa idaacadda isugu soo noqon doonaa inta ka horeysa sidaas iyo nabadgelyo